Soomaaliya toosoo isku tiirsadaye habatiina taatarane taakeera walikiine. Soomaaliya toosoo isku tiirsadaye habatiina taatarane taakeera. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdixakiim Cabaas Xaaji Iimaan. Waxaan ahay mid ka mid ah dadka isku xilqaamay caawimaadda agoonta Soomaaliya iyo dadka danyarta ah. Waxaan rabaa inaan halkan wax yar idinkaga sheego. Haddii aad maqashaan hay'adda Al-Mustaqiim Foundation waxay ka hirgelisay Soomaaliya iskuul wax lagu baro carruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah. Hay'addu waxay jirtaa muddo ku dhow 2 sano. Iskuul ayay samaysay, macallimiin ayaa joogo. Ciyaal badan oo agoon iyo danyar ayaan wax barnaa. Ciyaalkaas waxaan waxbarashada u dheer oo aan sameeyno sida uniformka kale ayaan ka caawinaa iyo buugaagta iyo waxyaalaha ay uga baahan yihiin iskuulka. Ujeedada aan halkan u soo fariistay cawada waxay tahay in aan ka codsado ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan in ay ka qayb qaataan nagana caawiyaan caawimaadda agoonta. Sida aan ognahay qof kasta oo muslima Soomaaliya meel kasta ay joogto waxa waajib ku ah in ay caawiso agoonta. Haddii adiga agoon ku gaar ah ay jirto oo familkaada ama reerahaada ah kuwaas waajib waxay kugu leeyihiin reernimo. Agoonta Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxay kugu leedahay waajib agoonnimo. Sidaas daraadeed waxaan u baahanahay inaad nagala qayb qaadataan, inaad nala bixisaan kirada iskuulka, inaad carruurta aad u iibisaan dhar. Carruurtu waxay u baahan tahay qaar waxa ku jira xanuunsan, mararka qaar waxay u baahan yihiin in aad u timaado haddii aad dhakhtar tahay ama aad goob caafimaad ku leedahay magaalada Muqdisho ama meelaha kale agoonta noo joogaan, in aad soo booqato caafimaadka agoonta, aad qayb ka qaadato, aad u samayso free check-up, kadibna daawadoodii iyo howlahoodii kale laga wada tashto. Haddii aad ku nooshahay Soomaaliya, Ilaahay uu ku siiyey xoolo, waxaa lagaaga baahan yahay in aad timaadid iskuulka oo mataqaanaa aad wax ka ogaatid xaaladda ay agoonta ku sugan yihiin. Waxaad bixi kartaa sakooyinkaada iyo mataqaanaa xoolo Ilaahay ku siiyey saka ayaad ka bixi kartaa. Haddii aad mararka qaar ay kugu soo dhacdo ama shaydaan kuu sheego sidaan ku aaminaa dhalinyaradan hay'adda Al-Mustaqiim iyo iskuulkeeda wado, adiga ayaad iskuulka imaan kartid, kiradii ayaad naga bixi kartaa, carruurta ayaad intaad kaxaysaad qada soo sii kartaa, uniformka ayaad u iibi kartaa. waxaad noo keeni kartaa iskuulka waxyaalo looga baahan yahay sida qalmaanta, buugaagta iyo warqadihii printerka iyo computer aad noo keeni kartaa. Waxyaalo badan ayaad mataqaanaa noo caawi kartaa. Waxaan idinka codsanaynaa meel kasta aad joogtaan, haddii aad adduunka dacaladiisa meel kasta aad uga sugan tihiin, inaad nala soo xiriirtaan. Website-keena aad gashaan www.almustaqim.org, inaad nala soo xiriirtaan sida aad ka arki kartaan warqadda halkan ku dhagan, inaad nagala soo xiriirtaan lambarada halkaas aad ka arki doontaan, emailkeena, website-ka aad gashaan, iskuulka aad booqataan, agaasime Cabdirashiid Cali Xasan aad la xiriirtaan. Haddii Yurub iyo Mareykan aad joogtaan, nala soo xiriirtaan. Cabdixakiim Cabaas Xaaji Iimaan oo ah gudoomiyaha hay'adda oo aniga inaad la soo xiriirtaan. Si kasta oo nuga caawi kartaan, volunteer inaad noqotaan adduunka meel kasta aad joogtaan. Haddii aad Mareykanka iyo joogtid xataa waxaad sameyn kartaa inaad na caawisid adigoo caawisay oo iskuulkii iyo waxbarashadii hawshii aan wadnay caawinaysay ayaad haddana xilliga canshuurta la gaaro kale ayaad isticmaali kartaa lambarka oo dawladuna siisay canshuur dhaafka. Taas waxay ka dhigan tahay inaad adduunkina aad la baxday sadaqo oo aad caawisay dadka kuu baahan, aad mataqaanaa adigoo aakhira ula bixaysid, isla adduunyadina ay lacagtaada qayb ka mid ah kugu soo noqoto. Waxaan ka rajaynaynaa meel kasta oo aad joogto in aad Ilaahay dartiis noola shaqayso oo annaguba aan howlaheena kale adduunyadeenna iyo culaysadeena kale annagoo mataqaanaa na haystaan ayaan haddana u soo istaagnay inaan wax u qabanno agoonta Soomaaliyeed. Agoon markii aad maqashid qabiil iyo deegaan iyo malahan waa agoon. Agoonta aan hayna qaar ka mid ah xataa hooyo malahan ayaa hayso, hooyadooda aabahood way geeriyoodeen. Ka soo qaad adigoo geeriyooday carruurtaadii u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamka oo annagu aan carruurta aad ka tagtay aan waxbarasho siino oo uniformkoodii caafimaadkooda aan ka warqabno. waa wax wanaagsan marka ka soo qaad adiga mataqaana adiga iska soo qaad meel kasta oo aad joogtid bishii hadii aad diibto $25 waxay ka dhigan tahay agoon inaad ka faal qaado waxbarashadiisii sanadkii hadii aad $300 aad bixisid waa sanadkii oo dhan
canugaas agoonka ah mataqaanaa waxbarashadiisa ayaa kafaalo qaaday waxaad sameyn kartaa agoonka ayaan lambarkiisa iyo waxaan ku siinaynaa hooyadiisa ama ayadiisa qofka oo la nool yahay lambarkeeda toos ayaa ula xiriiri kartaa Soomaali hadii aad tagtid agoonkaas waad arki kartaa waalid ayaad u noqon kartaa waxaad ogaataa meel kasta oo aad ku sugan tahay way kugu xisaabtamayaan agoonta Soomaaliyeed iyo caruurta danyarta ah meel kasta aad joogtid magacaada ma yaqaanaan laakiin waxay ku ogyihiin inaad tahay qof Soomaaliya oo joogo adduunka maalin maalmaha kamidana u damqad doono oo mataqaanaa waxbarashadooda iyo caafimaadkooda wax ka qaban doono waxaad kaloo xasuusataa caruurta Soomaaliyeed agoonta iyo kuwa danyarta aan awoodin iskuulaadka hadii iskuulaadka aan ka bixino oo iskuulka ay dhigtaan bari waa mustaqbalkeena wax badan ay wadanka ka bedeli doonaan darbi jiif ma noqon doonaan kuwa dambiyada kala gala ka waaweyn ma noqon doonaan waxay haystaan second choice waxbay ka fikiri karaan hadhowti inay nolol kale iyo mataqaanaa waxba u soo baxayo iskuulka markay caruurta joogaan waxaan barnaa wixii waajibka mataqaanaa lagu leeyahay diinta islaamka ayaan barnaa salaadii mataqaanaa meesha ku dukadaan tarbiyada islaamka dhinac waxyaalo badan ayaan mataqaanaa aan noloshooda ka bedelnaa soo arag iskuulkeena tag caruurta sida ay u diyaarsan yihiin sida ay u quruxsan yihiin soo arag meel kasta oo aad joogtid naga caawi isku day mar kasta oo wadanka Soomaaliya aad tagtid inaad Ilaahay dartiis agoontaas u soo booqatid dadkana u soo bandhigtid agoonta iyo meesha wax aan ku hayno waxaan ka codsanaynaa magacaada ma naqaano meesha aad ka timid ma naqaano caawa waxa kula hadlayo gudoomiyaha hay'adda Cabdixakiim Cabaas Iimaan meel kasta aad joogto waxaad ogaataa inay waajib kugu tahay inaad agoonta Soomaaliyeed aad caawisid oo mataqaanaa garab siisid agoontu way badan tahay meel kala gedisan ay joogaan laakiin annaga waxaan ku ballan qaadaynaa oo mataqaanaa inaan ku tusno $25 aad dhiibtay cunugii wax lagu barayay waxbarashadiisii iyo heerkiisa waxbarashada marka way kaaga fududahay inaad agoon aadan meel ku ogeyn aad raadisid iyo cid kaaga wakiil halkan wakiil ayaan mataqaanaa aan kaaga nahay insha Allah mataqaanaa waad ogtahay qiimaha iyo wanaag ay leedahay in agoon la caawiyo sidii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam oo yiri jannada labadiisa farood markuu sidaan isku dhinac dhigay jannada inaad sidaas kula naqanaysid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waad qiyaasi kartaa wanaaga iyo quruxda iyo mataqaanaa ay leedahay sida daraadeed waxaan rabnaa inaad Ilaahay dartiis noola shaqeyso volunteer noo noqoto meel kasta aad joogtid dadka aad u soo bandhigtid hay'adda Al-Mustaqim agoonta ay hayso waxaan rabnaa sanadkan insha Allah dhamaadkiisa agoonteenu inay ugu yaraan 500 ay gaarto ama kun inta aan gaarsiin karno kor aan u sii socono ilaa aan gobolada Soomaaliya dhan aan tagno oo ilaa mataqaanaa 10 kun agoon aan insha Allah aan masuul ka noqono waxbarashadooda dhibaatooyin badan jira abaaraha iska jirto waxyaalo badan jira laakiin anagu waxaan xoog saarnay waxbarashada sidaas daraadeed maadaama waxbarashadu wax kasta waxbarashadu ay ka horeyso oo hadii aan wax la baran waxba aan la awoodin insha Allah waxaan ka rajaynaynaa in aad sida anaga aan isku xilqaanay adigana aad isku xilqaantid nala soo xiriiri doontid garab nagu sii doontid dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya tooso isku tiirsadaye habatiina taatarane taakeera walikine Soomaaliya